iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinku haynana waxaa ka mid ah qalalaasiyaha Jigjiga sidee ayuu u saameeyay isku socodka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalooyinka Wajaale iyo Jigjiga warbixin ayaanu idinkaga haynaa magaalada Beledweyne waxaa kala qaybiya webiga Shabeelle maadaama aanay buundooyin badan lahayn dadku waxa ay webiga kaga tallaabaan dooyo yar yar oo ay iyagu farsamaysteen doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka oo wax ka yar 100 maalmood ay ka harsan yihiin iyadoo dimuqraadiyiintuna ay ku horeeyaan ra'yi ururin la sameeyay qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA-da ee toddobaadkan xaaladda magaalada Jigjiga ee dalka Ethiopia ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay qasnayd kadib markii ciidamada militariga ee dawladda dhexe ee magaalada galeen taasi waxay sababtay qalalaasyo halkaasi ka dhaca ugu dambeyntiina waxay keentay in xilkii madaxweynenimada uu ka dago madaxweynihii hore ee maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia haddaba qalalaasyahaasi ka dhacay Jigjiga wuxuu saameeyay ganacsiga iyo isku socodkii magaaladaasi ee dhinaca Somaliland warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Sagal Mustafa tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa guud ahaan bay istaagay isku socodka ganacsi gaadiid iyo bulsho ee labada xuduudood u dhaxeeya Somaliland iyo Ethiopia haddaba VOA ayaa u kurgashay xaaladaasi waxaanu booqasho ku tagnay magaalada Togwajaale halkaasi oo isku socodka gaadiidka iyo dadka iskaga kala gooshay labada xuduudood uu dib u furmay iska socodku caadi buu ku soo noqday hadda labadii maalmood ugu horeysay ayuu taagnaa oon cid isu gudbayn laakiin shalay ilaa maanta caadi buu socodku soo noqday caadi baa maxaan ku dhahay waliba xaggan Somaliland bay dadku u soo galayaan ay maxaan ku dhahday u soo gudbayaan marka isu socodka caadi baa ku yahay ganacsiga laakiin taagan magaalada Hiba Cabdi Axmed oo Jigjiga ka soo gashay kana soo gudubtay xuduudka Ethiopia ayaa sheegtay in xaaladda magaalada Jigjiga ay waqtigan degan tahay deganahay laakiin anigu reerkaygu Jigjiga degan yihiin Hargeysana waan deganahay fasaxii baan nimid nabadgelyana waan ku nimid nabadgelyana ku soo galnay inkastoo Nimcaan Xasan Bakor oo isna Jigjiga ka soo galay uu sheegay inaanay wanaagsanayn xaaladda magaalada Jigjiga gudaha magaalada Jigjigana uu ka dhacay biliqo xoogan oo dhinaca ganacsiga ah horta wallahi ganacsiga isagu ganacsigu baaba'ay horta isaga ganacsiga xagga ganacsigu way baaba'dayba waxa ka jirta ciidamadeeni aan lahayn anaga waxa la geeyay xuduudaha ciidamadii xuduudaha joogay Ethiopia waxa la keenay magaalada Jigjiga wax lagu joogo ma jirto ciidamadan markii hore walaaladeen bay haayeen kuwana waa kuwan dhageysan karna ma xabada iskaga dhufanayeen badadka intay dhahaan way nagu soo buuqeen ay iskaga dhufanayeen marka waan ka soo carnay waxaan u soo carnay xagga Somaliland ganacsigiina u istaagay ganacsiga Ethiopia baa u badnaa horta Soomaalidu ma badneenba intii Ethiopia ku badneenba Soomaalidu way wada jiiday oo marka waa la bilaqaystay marka wax lagu joogo malaha meeshina military iyo waxba lagu soo daadiyay Somaliland iyo Ethiopia ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen oo dhinaca ganacsiga ah taasi oo waqtigan u muuqata inuu saameyn xoogan ku yeeshay dhinaca ganacsigu rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga Sagal Mustafa Xasanuur VOA Hargeysa magaalada Beledweyne waxaa ku dhaxlaablaabta oo ilaa 5 dhinac u kala qaybiya webiga Shabeelle maadaama ay magaaladu sii fidayso buundooyinka ama kaabaduhuna ay ku yar yihiin waxa ay dadka webiga uga gooshaan doonyo yar yar oo ay iyagu farsamaysteen warbixintan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane korarka dadka iyo deegaanada cusub ee magaalada Beledweyne ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyay ayaa waxay magaalada ka dhigtay mid ka baaxad weyn sida ay ahayd wixii ka horeeyay 1990kii magaalada oo dhex maro webiga Shabeelle ayaa tani waxay fursad shaqo u abuurtay qaar ka mid ah dadka deegaanka waxyaabaha idin muuqanaya waa doomo xadiid ka samaysan oo dadka iyo alaabaha si fudud isaga tallaabiya xaafadaha Xawataako iyo October oo ka mid ah xaafadaha ugu ballaaran magaalada doomaha oo aanan ahayn kuwa ku shaqeeya mashiin ayaa labada dhinac ee webiga waxa loogu xiray xarko adag si marba dhinac loogu jiido iyadoo la isticmaalayo awood bini aadam waqti badan ayay qofka lugta ah ku qaadanaysaa in uu gaaro cirifyaha labadan xaafadood alxamdulilah rabbil caalamiin ilaaha noogu nafteexay 17 sano 18 sano ayay doomankan ka shaqeynayaan meesha ilmuhu intay soo baxaan ay doonta lacag laan iskaga raacaan lacag lagama qaado ilmaha yarka dadka waaweyn ma ahane
intay soo baxaan suuqa qudaarta yimaadaan hilibkii yimaadaan looga soo adeegaan isla mar ahaantiiba noo keenayaan wixii la dalacanayaa haddii ayna doonta ahayna wareeg dheer cunug wuxuu imaanaa subaxdii markaad jirtid qadadiioo dadkii karsadeen oo iska imaanayaaba hadday xiran yihiin magaalada lagu dheer waayo safar dheeraad soo maraysaa irid aaminaad soo marayso oo qudaartaad imaanay isticmaalka doomahan ayaa wax weyn waxay ku soo kordhiyeen isu socodka xaafadaha xawataaka iyo weyn waxaana maalin walba si joogto ah u isticmaala ardayda ganacsatada yaryar iyo shaqaalaha normaalka gaar ahaan kuwa dhismaha dhinaca kale shaqada doomahan waxa ay dabooleen baahi shaqo oo deegaanka ka jirtay oo waxaa shaqo ka helay rag dhalinyaro u badan oo maalin walba masaarifta reerahooda ka shaqaysta. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha VOA, Beledweyne. dhalinyaro ka tirsan Somaliland ayaa isku xilqaamay faafinta yoolalka horumar waara oo ay sanadkii 2015 qaramada midoobay u dejisay horumarinta dadyowga dunida. yoolalkan ayaa dhalinyaradu geeyeen goobaha waxbarashada iyo madallo kale. wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye oo la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradan isxilqaamay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa. yoolasha horumar waara ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo Sustainable Development Goals waa 17 yool oo qaramada midoobay dejisay sanadkii 2015 kuwaas oo siyaabo kala duwan u taabanaya nolosha dadyowga dunida. yoolalkan ayaa higsigu yahay in lagu gaadho muddo 15 sano ah. haddaba dhalinyarada Somaliland qaarkood ayaa isu xilqaamay gudbinta, tabinta iyo faafinta yoolalkan iyagoo marinaya nidaam iyo habab dadku u fahmi karaan. Fadxi Baashi ayaa ka mid ah daayarta arintani dhabarka u ritay waxaana weydiiyay yoolalkan waqtigii la dejiyay 3 sano laga joogo iyo habka ay nolosha dadka ku dhaqan Somaliland ula xidhiidhaan. 15 sano imika waxa tagtay 3 sano marka sababtay ku kalifteen aan curiyo barnaamijkan ama programkan waxa weeyaan in dadkii wacyigelinta wada gaadho waxa jiray yoolalka hore ee 8 gool ahaa dadka wacyigelintu may wada gaadhin marka si aanu kanatiyo aan dadkeenu ogeyn ay inaga dhacaan ayaabay ku kaliftay yoolashan waa qaaran inagu u baahnayn sababtoo ah waxa jiray imka dad eegto goolkan climate action oo kale oo ah goolka 13aad oo kale wuxuu la xiriiraayo kala abaarihii maaragtay marka dhinaco waxayaan waa caqabad xoog inoo hayso sanad kasta inuu soo noqotaa marka dhinaca la sii eego hadii aan yoolka inaan iska xakameyn oo kale hadday noqoto buffertiga hadday noqoto waxbarashada tayada lahayd hadday noqoto caafimaad tayo leh wixiina lama gaari karayo. Fadxi waxa uu sameeyay hal abuur lagu horumarinayo korna loogu qaaday wacyigelinta la xidhiidha yoolalkan horumarineed. higsiyo kala duwan ayaa Fadxi iyo dhalinyarada la mid ah tiigsanayaan si ay u gudbiyaan ujeedooyinka iyo dulucdooda oo ku kooban 2 qodob kuwaas oo kala in la fahmo faa'iidooyinka yoolasha horumar waara iyo in dadka talada haya ay dhega iyo indho furan u yeeshaan gaarsiinta iyo fulinta yoolashan. waxaan weydiiyay cidda ay abaarayaan. walaal ilaa imika waxaan abaarnay waxa jira ardayda iskuulada dhigta iyo ardayda jaamacadaha dhigta iyagana miitina u sameynay waxa kale iyagana aan ku soconaa oo doonayna u qabano iyagana kulamo hadday noqoto qaybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto civil society hadday noqoto culimada hadday noqoto haweenka iyo hadday noqoto dhalinyarada kale bulshada waayo bulshadeena qaybta u badan waa dhalinyaro haween marka anagu taa ka faa'iideysanayna ayaaban maaragtay xoog saari doona dhalinyartii haweenka si bulshada ay u sii wada gaarsiiyaan waa maxay yoolasha horumar waara iyo faa'iidada inuu leeyihiin. geesta kale waxaan Fadxi weydiiyay cidda ka taageerta fikirkan iyo hawsha uu dusha u ritay. marka laga imaado xarunta dhaqanka ee Hargeysa ilaa imika sidaan hawsha ku wadnaa wax weeyaan amaan hawsha ku wada wax weeyaan maaragtay si iska wax u qabso ah oo bulshada uu isku dayeen dib wax ugu celiyo. Barqad Maxamuud Kaariye, qubanaha VOA, Hargeysa.
iyadoo wax ka yar 100 maalmood ay ka harsan yihiin doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa ra'yi ururino la sameeyay oo ku horeeya xisbiga dimuqraadiga inkastoo madaxweyne Trump uu taageerayaashiisa ku boorinayo inay si xoogan doorashada uga qayb galaan. Jim Malone ayaa warbixintan diyaariyay. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya. isu soo bax dhawaan ka dhacay gobolka Montana ayaa madaxweyne Trump u taageerayaashiisa ku booriyay inay soo baxaan oo bisha November ay taageeraan tartamayaasha jamhuuriga. ma dabcayno uma jilcayno weligeen isma dhiibayno weligeen kama hadhayno guusha ayaan ku sii soconaynaa. xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa isaguna wada olole xoog badan oo doorashooyinka November la xidhiidha. Bernie Sanders oo 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax ka dhacay gobolka Kansas. dagaalka loogu jira aqalka hoose waa mid muhiim ah waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. haddii aad samaysaan waxaan ogahay inaad samayn kartaan. doorashadani waxay noqonaysaa mid aan dalka oo keliya laga maqline dunida oo dhan laga maqlo. dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa iyo dhowr iyo 20 kursi si ay ula noqdaan aqlabiyaddii aqalka hoose. aqalka sanadkana waxay uga baahan yihiin 2 kursi oo keliya. marka laga yimaado tamarta badan ee ku jirta dimuqraadiyiinta taariikhda ayaa u hiilin doonta sida uu qabo John Fortier oo ka tirsan xarinta Bipartisan Policy Center. doorashooyinka xilliga dhexe waxay inta badan u fiican yihiin xisbigan aqalka cad joogin. xilliganna Donald Trump maaha madaxweynaha dimuqraadiyiintu jecel yihiin waxayna jecel yihiin inay dibadda u saaraan. laakiin Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay taariikhdaas beddelaan oo ay soo baxaan ajandihiisana taageeraan. labada xisbi waxay doorashadan soo socota u arkaan afti madaxweyne loo qaadayo sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. marmar dhif ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqda doorasho taasoo isaga lagama maarmaan u ah. isagu waa sida cadceeddii waxa kaloo ka soo hadhayna waa sidii dayixii amaba meere isaga ku wareegaya. marka la eega shacbiyadda hooseysa ee Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe dimuqraadiyiintu waa inay guula ka keenaan sida ay qabto Elaine Kamark oo ka tirsan macadka Brookings. su-aashu waxay tahay ma waxaa jira dabeyl dimuqraadi mise seenaama dimuqraadi. dimuqraadiyiintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 30 kursi. waxay la tahay arrintaasi qofna weli ma sheegi karo. marka la eego taageerayaasha madaxweyne Trump salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keeni karaan natiijo ka wanaagsan sida la filayo sida uu qabo Cory Lewandowski oo ah madaxa ololaha Donald Trump. waxay la tahay dimuqraadiyiintu waxoogaa kuraasa ayay helayaan laakiin haddii doorashada maanta la qabto jamhuuri waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan 1 ama 2 kursi oo dheeriya. dhammaan 435 kursi aqalka hoose 3 meelood 1 meel 100 kursi sanadka ayaa tartan loogu jiraa bisha November. natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa 2 sano u hartay madaxweyne Trump. intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeena qubanaha oo toddobaadkan si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.